si loo ogaado baahiyaha asaasiga ah ee ka jira deegaanada hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowladda Galmudug ayaa wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore qaybna ay ka yihiin wasiirka biyaha iyo tamarta Galmudug wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha xildhibaano iyo maamulka caasimadda waxay gaareen deegaanka Higlaale oo qiyaastii 12 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ujeedka wafdigan ayaa ahaa xarig jarka iskuul dadka deegaanku si isku tashi ah u hirgeliyeen kaasi oo wax lagu barayo ubadka deegaankan munaasabad soo dhaweyn ah oo wafdigan loo sameeyay ayaa ugu horeyn waxa daahfuray gudoomiyaha deegaanka Higlaale Cabdullaahi Macalin Cabdikariin waxaana uu xusay in bulshada deegaanku haatan ay ka baxayaan baahi muddo soo jirtay oo ahayd dhanka waxbarashada iskuul ka furan Higlaale ay ku dhisteen dadka deegaanku tabarucaad iyo gacantooda iyo maalkooda insha Allah taala ayna dhiganayeen muddo badan ay taamayeen inay ku soo sugtaan dawladda Soomaaliya qaas ahaan dawladda Galmudug waxaan leenahay ku soo dhawow maantay waxaan leenahay meeshaan waxa jooga dad aad u fara badan gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ahna duqa caasimadda Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geed Qorow iyo xildhibaan Cabdilqadar Joon Bare oo dhankooda munaasabadan hadal ka jeediyay ayaa sheegay in deegaankan soo kobcay oo u baahan yahay in dawladdu u muujiso garab istaag waxaan rabaa runtii inaan ka mahad celiyo dadaalkaas dheeraadka cid kasta oo ka qayb qaadatay iskuulkan inuu maanta sidaan soo noqdo dadkan shacabka la caawiyo haday tahay jaaliyad dibadda jirta iyo haday tahay mid gudaha joogto hantidooda ku dhiibtaba waxaan rabaa anigoo codkayga iyo codka maamulka ku hadlaaya inaan u mahad celiyo ilaahay wixiina wax khayr qaba oo bedelkooda Allah idin siiyo wixii aad la baxdeen na ilaahay subxaanahu wa ta'aala meeshii aad ku bixiseen sidii aad ka rabteen Allah ka soo saar sida kale matalaada in ku matalna Galmudug waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay yiraahdo baahiyo badan qabtaan inaan xooga saarno inaan wax ka soo saarno banaankana keeno waana mahadsantiin wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta Galmudug Maxamuud Kaarshe oo qayb ka ah wafdigan ayaa sheegay in reer Higlaale dhawaan wasaaraddiisu soo gaarsiin doonto biyo maadaama ay hirgeliyeen qayb kamid ah adeegyada bulshada marka waxaan isku dayaynaa insha Allah ka wasaarad ahaan inaan mudnaan aad iyo aad u weyn siino si hadda idin sheeg waxyaabaha resource-ga ama dhaqaalaha ama waxyaabaha lagu talagalay mar walba aad iskaga yar yihiin laakiin xiriir badan iyo codsiyo badan oo noo maqan dartood waxaan rajaynaynaa in deegaankan uu noqdo deegaanada ugu horeeyo aan muhiimada siin doono baahida deegaankan oo ka jawaabi doona oo waligoodna ay wadeen haddana maanta u joogno maadaama ay soo noqoto isku dayaynaa insha Allah inaan mudnaanta koowaad siino ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore oo si rasmi ah iskuulkan u furay ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay sii wadi doonto garab istaaga iskuulkan waxaana wasiirku intaa raaciyay in wasaaraddiisu ay ka shaqeyn doonto sidii iskuulkan looga dhigi lahaa mid nidaami ah baahida ugu horeyso oo la sheegay maanta agabka wax lagu baran lahaay aniga ayaa ballan qaadaya waana la keenayaa hadii la hayra asaga ayaa soo gudbinaya hadii la hayraahdo waxaan rajaynayaa muddo aad u kooban in iskuulka la keeno kuraasti iyo agabkii kale ee u baahnay iskuulada tuulooyinka laga furayo oo sidan oo kala ah oo aan lahayn meel kale ama goob waxbarasho aan lahayn waa waxa ugu wanaagsan oo annaga istaraatiijiyadda ugu muhiimsan ah oo kordhin karta in arday badan iskuulada tagaan laakiin meelaha magaalooyinka ah oo iskuul uu ku yaalo iskuul inta laga furo ardadii waxay ka soo jabayaan iskuulkii kale ee soo korayay oo kor u soo kacayay ay ardadii u kala jabayaan laakiin meeshan oo kale waa meelaha leesla qiray oo wax muran ah aysan ka jirin wasaaradda waxbarashaduna ay ku qasban tahay halkan oo kale hadii iskuul laga furo inaysan hataa muran aysan gelin leesma weydiinaya hataa Cabdullaahi Warsumo Roble Galmudug TV Dhuusamareeb